بسم الله. أبابكي جال محمد سياد بري يكعانكي أكتوبر قيبتي اللواد كعانكي أكتوبر انتي ودا حيث كون يسغال بقول يلحدكي يكون يسغال بقول لحدن يسغالكي وحدالك كتلينيسي دولاد ريد oo qaab doorasho talada ku heli jirtay hase yeeshee waxaa jiray xisbiyo aad iyo aad u tiro badan oo ku dhisnaa hab qabiil arrintaasi waxay dalkii geyaysiisay qulub siyaasadeed iyo dabac hanaankii hogaaminta dalka ah waxay arrintii sii murugtay markii oktoobar 1969kii lagu toogtay madaxweynihii dalka mudane cabdirashiid cali sharmaake magaalada laascaanood haddaba oktoobar 21keedii 1960kii oogtii hore ayaa ciidamadii qalabka sida isku gadaameen barihii doorka ahaa ee dowladdii waxayna xabsiga u taxaabeen badi madaxdii sare ee taliskii dalka 20 sarkaal oo xoogga dalka Soomaaliyeed ah iyo sarkaal oo booliska ah ayaa sareeyay guud Maxamed Siyaad Barre ku hagay afgambi aan ku daadan bloodless coup d'etat ama la yiri waa towradii cadayd waxay galay sare kacaanka oo markaas isku magacaabay Somali Revolutionary Council laaleen dastuurkii dalka waxayna tireen golihii shacabka Council of Parliamentarians waxayna maanaceen xisbiyadii siyaasadda maxkamaddii sarena way tireen dalkiina waxaa dib loogu magacaabay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya Somali Democratic Republic saraakiishii kacaanka hogaaminaysay waxay taariikhda ku xariiqeen in kacaanka noqdo kii saddexaad ee ugu weynaa kacaanadii geyga Soomaaliya ka curtay waxay muujiyeen firfircooni waxayna jaangooyeen qorshayaashii siyaasadda gudaha iyo tan dibadda ee dalka waxay qaadeen ololayaal waxqabad leh oo dhan kasta oo nolosha dadka Soomaaliyeed taabanaysa waxaa mudan in la xuso mashaariicdii iskaa wax u qabso oo xubno badan oo dalka Soomaaliyeed ah oon hore u lahayn xirfado wax soo saar lagu tababaray arrintan oo door weyn u lahayd dalka sidoo kale waxaa dalka laga hirgeliyay mashaariic badan oo dardartay u fulayeen mar Soomaaliya u ekaatay dalka ruqaansanaya fadhiidnimadii dunida saddexaad 1974 waxaa Jaale Maxamed Siyaad oo markaan ah gudoomiyaha golaha sare ee kacaanka iyo madaxweynaha dalka la saxeexday dalkii midowga Sofiyeedka ee Itaalka ahaa heshiis mug weyn isla sanadkaas wuxuu Siyaad saxeexay xubin ka ahaanshaha Soomaaliyeed ee jaamacadda Carabta haddana isla sanadkaas wuxuu Siyaad noqday gudoomiyihii ururka midowga Afrika dhalintii firfircooneyd ee kacaanka horseeday waxay si isdabashooga ugu baaqayeen himiladii la doonayeen horumarintii dalka iyo barnaamijyadii hanuuninta dadweynaha oo tubtay rabeen ku duwayay bulshada Soomaaliyeed 1972 ayaa meel fagaara ah ee dad badan isugu soo baxay waxaa khudbad taariikhiga ka jeediyay Jaale Maxamed Siyaad Barre wuxuuna khudbadiisa ku sheegay in markii ugu horeysay afka Soomaaliga laguna qoray xurufta Laatiinka intii uu khudbadiisa waday ayaa waxaa dul hayaabay fagaarihii raxad diyaarada ah oo ka tirsanaa ciidankii cirka Soomaaliyeed oo daadinayay dhambaalo tusaaleynaya sida farta cusub loo qoray maalintaas waxay bag cusub u furtay guud ahaan taariikhda Soomaaliyeed waxayna ahaatay astaan mar walba lagu garan doono waxqabadkii kacaankii Libineed iyo sharaf ku lamaansanaan doonta magaca Jaale Siyaad si facorta cusub loo hirgeliyo ayaa waxaa lagu booriyey shaqaalihii dowladda inay kula galaan imtixaano lagu hubinayo inay bartaan farta sidoo kale waxaa dalka oo dhan
dalkoo idin laga joojiyey sanad dugsiyadii 1974 ilaa 1975 laba fasal mooyaane. waxaana dhammaan ardaydii dugsiyada dalka loo baaliyey inay dadkooda ka hamuuntiraan wax qorista iyo wax akhriska. abaabul heer qaran ah oo aad u ballaaran baa la galay. waxaa jid walba ku baxay gaadiid sida gutooyin arda ah oo u ambabaxay goob kasta oo meel soomaaliyeed taal, miyi iyo magaalaba. waxaa dalkii oo dal ka oogmay kacdoon waxqabad leh, waxaana halhays noqotay bar ama baro, oo loola jeeday haddaad taqaan wax qorka bara noqo, haddaadna aqoonna iminka baro. hal sano kadib markii uu dhammaaday ololihii weynaa, waxaa dadkii soomaaliyeed ee in yar wax qori jirtay mar qura intii badneed isu rogtay dad wax qori kara, waxna akhrin kara. horumarkaas degdega ah ee la yaabka leh wuxuu ahaan doonaa mid raadkiisu qoyanaado inta qaran soomaaliyeed jiro. loogama harin qoristii farta intaase. waxaa la diyaariyey inay bixintii culumta kala gedisan ee dugsiyada laga dhigo oo si aada ugu habboon loo habeeyey. waxayna arrintaasi hirgashay ilaa manhajyada dugsiyada sare. intii soomaaliya ay dowlad ahayd iyo ka horba waxaa jiray hami ku fog dadka soomaaliyeed oo idil oo ku beegnaa dhulkii soomaaliyeed ee gumaystuhu kala qoqobay. waxaana ugu darnaa qaybtii soomaali galbeed ee gumaystaha madow ee amxaarada ka talinaysay. dowladihii soomaaliyeed arrintaasi waxay ka mid ahayd ajadooyinka koowaad. haddaba xisbiga gacaanka hatowdaanka gacaanka soomaaliyeed ee la abuuray 1976 golihiisii dhexe jaalasiyaadnaga aqoon-yahan guud baa ansixiyey in xoogga dalka soomaaliyeed gacan siiyo jabhadihii xornimadoonka ahaa ee soomaali galbeed oo intii muddo ahba loona adag kula jiray taliskii xabashida. wuxuu xoogga dalka soomaaliyeed galay dagaallo aada u culus, waxaana caan noqotay goobo dagaal sida goday iyo jigjiga oo gaashaqaadka soomaaliyeed ku muujiyey karti dagaaleedkiisa dabiiciga iyo tallabartaba. waxaa muddo yar ku guulaystay xooggii dalka soomaaliyeed oo xoreeyey badi dalkii soomaali galbeed kadib markuu xabashida ku jabiyey goob walba. dagaalkaas waxaa galay qaranka soomaaliyeed oo idil dowlad iyo dadba. waxaa mudan in la xogasto sugaantii dagaalka ee sida talantaaliga uga baxaysay raadiyo muqdisho, taas oo aan ka awood yarayn holaca baaruudda. sugaantuna sideedaba waayihii kacaanka bay u kobacday si aan hore loo arag loogana sheekayn. waxaase xagal daaciyey guushii cibriga oo uu haleelay qaranka soomaaliyeed jaalasiyaadna ka ahaa halyeygii dumayey ololahaas xoogagii ugu itaan roonaa dunida ee ruush iyo maraykan oo mar qura iyagoon hore wax heshiisa u yeelan intii u socday dagaalkii qaboobaa hal mar ku heshiiyey in soomaaliya laga hortago. si taariikhda yaab ku leh bay waxay ugu heshiiyeen in soomaali weyn ay kala dhantaalaan. waxaa dowladdii soomaaliyeed si cad oo handalaad wadata loogu sheegay inay kala baxdo dhulkii soomaali galbeed ciidamadii xoreeyey. si muruga leh buu maxamed siyaad barre u amray in laga soo baxo dhulkii geesyada soomaaliyeed xoreeyeen oo diricyadu u qubeen dhiig badan. waxaa la wariyey inay ahayd in si xoogga dalka soomaaliyeed si isla ogol yahay uga soo guuraan goobihii ay ku sugnaayeen. waxaase taas rogay cadowgii gudaha oo u bedelay in si dalambaabiya looga soo baxo. waxaa jabay hankii weynaa ee shacabka soomaaliyeed ee si joogtaa ugu haliilayay habashada soomaali weyn. waxaa jabay hankii hadiyeeyadii qaranka. waxaa dubay dhaqaalihii dalka oo si hagar la-aana loogu huray baadigoobkii soomaali weyn.
iyadoo daqarkii weynaa ee gaaray soomaaliya ay weli la tiicayso tawstii ku habsatay ummaduna weli ka muuqato ayaa si lama filaan ah xubno xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsanaa u maleegeen afgembi dhicis noqday 1998 afgembigaas wuxuu horseed u noqday fidnadii ka hortay dalkii mar hugubkiisa laga maqlay hareeraha dunida oo idil dhammaadkiina ka dhigay soomaaliya meel aan dowlad lahayn oo dawarka madfaca iyo daranka rasaasta aakaha un laga maqlo ballaxdii kacaanku u diina shacabka soomaaliyeedna ku aasay dambas baadigoobkii soomaali weyn ee kacaankii oktoobar uu horseedka ka ahaa ma wada hungoobin waxaa xornimadii haleelay jabuuti bishii 7-keedii 1977 waana loo marag dowrkii dowladda soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed ku lahaayeen guushaa soo hoyatay maalintii 1991dii kacaankii qaranka dubiska ahaa ee maangaabka soomaaliyeed ka talinayay dubiyey taliskii dalka jaalasiyaadna ka baxa xamar ma jirin dowlad waxtar leh oo la sheego ee waxaa jiray qalfow dowladeed oo aan ficil nool lahayn waxay dowladdii iyo madaxdeediiba u ekaayeen kuwo xawli dheer ku orday oo xurtadii markaan la xiiqsan waxaana xoogankii riday qalfoofkaas noqdeen haaray duulaysa oo waxay aragtaba leefaysa ilaa dalkii oo dhan noqday laba degaan iyo lafa wada qayaxan aarkii la ganay iskama huleeline wuxuu ka soo jeestay gado isagoo weli geylabaya dhulkii isagoo gabana oo u qaxayba haddana u qaxay isagoo guxushaa gaboobaya wuxuuna u qumay iska difaaca xoogagii u haluulayay dhiiggiisa iyo kadadkiisa markii dambena wuxuu dumay kulif laxaal leh oo uu ku damcay inuu ku soo ceshado heebiskii laga tuuray arrintaas dambe ma suurtoobin oo waxaa dhagan iyo dhabarwareen ka yimid xubno ka tirsanaa cududu ku tiirsanaa jacalle maxamed siyaad barre wuxuu dhammaadkii magan u noqday nigeria oo si wacan loogu martigeliyey ilaa uu ku geeriyooday magaalada lagos bishii 1 1995 gadaashii soomaaliya waxay ku sidbatay haadaan dheer oo ba iyo hoog leh waxayna tabaysaa halyey u kaco wax unka caynsha malaha waxay tabaysaa hal abuurkii iyo howlkarnimadiisii malaha waxay tabaysaa madiixiisii iyo maxaawacaydii